guushii ay Israa'iil rabtay inay gaadho oo ahaa la tirtiro saddex arrimood in la tirtiro dagaalka muqaawamada oo laga guulaysto oo dib dambe aan loo arag labo in awoodooda siyaasadeedna la tirtiro oo dib dambe aynan u xukumin dalka arrinta saddexaadi in dalka laga saaro oo dibadda la geeyo amba Masar amba Urdun la geeyo saddexdii arrimood midna way suurto gali kari weeyeen waxaana suurto galin kari waayay laba arrimood oo waaweyn arrinta koowaad waxa weeye shacbiga oo diiday inay dalkooda ka baxaan wixii dooni oo ku dhacaha ku dhacay 150,000 oo qof baa u dhaxaysa dil iyo dhaawac iyo dad la waayay dadka meesha deganna waa 2 milyan iyo badh marka 150,000 ilaa 200,000 laga dilay laga dhaawacay la laayay la waayay waxay ka dhigan tahay in dadkani diyaar u yihiin in aynan dalkan ka bixin waana ta keentay markii dagaalku istaagay ee la heshiyay inay si daad ah ugu soo laamaan dalkoodii ama gobolladii ay ka qaxootiyoobeen ee waqooyiga ahaa marka taas waxay ku tusaysaa in ay guushii la gaari kari waayay ayna soo baxday fikrad aan sheegay maalintii 8 bishu ahayd amba 9 wariyaha weyn dunyadeen oo ay wareysanayay baa su'aalna weydiiyey aniga iyo walaal kale oo baadha ah Sheekh Shucayb oo halkaas isku yara khilaafnay oo isaguna Sheekh Shucayb arkayay in laga takhalusi doono muqaawamada aniguna arkayay in aan laga takhalusayn hadalkii aan maalintii iri yaa gadaal la yiri maalintii waxaan iri muqaawamadu waa fikradna lagama adkaado xoog lagama adkaado waan ka tira badanahay lagama adkaado waan ka awood badanahayna lagama adkaado horeyna uma dhicin maantana ma dhacayso birna ma dhici doonto sidii baa markaa dhacday Blinken iyo Biden iyo Netanyahu iyo ninka ciidanka xukuma Israa'iil wasiirkii hore gaashaandhigu intuba waxay yiraahdeen muqaawamadu waa fikradna lagama adkaado marka taasina waa midda labaad ee keensatay in aanan laga adkaan waxa weeyaan waa fikrad weeye arrin muhiim ah jirta arrinta muhiimkii waxa weeye dadka marka laga yimaado markii imika uu heshiiskii dhacay baaburadoodii oo nadiifa iyo kii oo nadiifa iyo dib loo arkay arrintaas oo ku tusaysa in aan fikradda lagana adkaan maxaan ku dhahdaa muqaawamadana laga marka arrinta labaad ee keentay heshiiska wax weeyaan inaan guushii la gaari karin